Assalaamu calaykum. Godka madow waa goob cirka ku taalla oo leh cufis jiidad aad u sarreeya. Cufis jiidadka ama gravity-ga uu leeyahay godka madow aad ayuu u daran yahay, xitaa ilayska qorraxda oo ah shayga ugu xawaaraha sareeya inta aadamuhu yaqaano kama baxsan karo. Haddii gudaha loo galo godka madow, waxaad kula kulmaysaa dhexdiisa madow iyo gudcur aan lahayn iftiin iyo nuur toona. Safarka lagu aadayo godka madow waa safar aan soo noqosho lahayn. Mar haddiiba aad gaarto meel xitaa ilaysku aanan ka baxsan karin, adiguna meel aad ka soo laabatid ma helaysid. Waxaadna u dhimanaysaa qaab aad u daran. Xidiguhu waxaa la sheegay inay ka samaysan yihiin energy iyo shidaal, waana ilayska habeenkii dunida u soo baxa marka laga reebo dayaxa. Marka uu xidig ka mid ah xidigaha waaweyni uu gaaro marxaladdii uu ku dhiman lahaa, wuxuu waayaa tamartiisii iyo shidaalkiisii uu ku samaysnaa, taasoo keenayso inuu isku duldhaco. Mar haddii uu isku duldhacana, wuxuu ku haabanayaa godka madow. Haddii xidigaasi ka mid yahay kuwa waaweyn ee qorraxdeenu ka weyn ugu yaraan 25 jeer, wuxuu isu beddelayaa godka madow markuu dhimanayo. Kunkii xidigoodba mid ka mid ah ayaa aad u weyn, kaasoo isu beddelaya godka madow. Majaradeenna ama xidig urarkeena ay qorraxdeenu ka tirsan tahay waxaa loo yaqaanaa Milky Way ama wadacaanoodka, waxayna ka kooban tahay 100 milyan oo xidigood. Sidaa daraaddeedna, xidig ururkeenu waxaa ku dhex jira 100 milyan oo godka madow ah. Hase ahaatee, ha hilmaamin, koonku aad ayuu u ballaaran yahay. Xitaa haddii aad ku soconayso xawaaraha ilayska qorraxda, waxay kuu qaadanaysaa kumanaan sannadood inaad gaadho godka madow ee inoogu dhow. Ka soo qaad inaad gaadhay mid ka mid ah godadka madow, maxaad ku dhex arkaysaa gudihiisa? Run ahaantii waxba kuma dhex arkaysid, keliya waxaa kuu muuqanaya madow lagu daray. Haddaad ku dul wareegatana waxaa kuu muuqanaya inuu yahay goobaabo, maha sida aad ku aragtid filmaanta kartoonka ee dhigaya in godka madow yahay sida saxanka oo kale. Waxa kale oo aad helaysaa in godka madow uu u weyn yahay ubucda ama dhexda sida meerayaasha kale oo dhan. Cufis jiidadka uu leeyahay godka madow dartiis wuxuu jiidanayaa qurbayaal isugu jira gaas iyo boor, kuwaasoo isku dul wareegaya sida cajaladda CD-ga oo kale. Qurbayaashaasna waxay ku daadanayaan gunta hoose ee godka madow. Godka madow laftigiisa ma arki kartid, sababtoo ah waxaa ku hareeraysan boor iyo gaas. Hase ahaatee, waxaa suurtagal ah inaad aragto qaabka cufis jiidadkiisu u jiidanayo fallaaraha ilayska, taasoo aad ku arki karto maadooyinka ku hareeraysan. Maadooyinkaas ku hareeraysan waxaa loo yaqaanaa xadhka godka madow. Qaar ka mid ah fallaaraha ilayska ayaa suurtageliya inay soo gaadhaan ishaada ama teleskoobkaba. Waxaadna arkaysaa ilayska oo ku dul wareegaya xuduudda godka madow. Sidaa daraaddeed, mar haddii aanay kuu suurtoobaynin inaad aragto godka madow, waxaad arki kartaa xadhkiisa. Si loo arko xadhka godka madow, waxay saynisyahanadu diyaariyeen barnaamijyo software ah oo aad u heersareeya, kuwaasoo sharaxaya qaab dhismeedka gaaska iyo boorka ku gadaaman godka madow. Waxaana caddaatay in muuqaalkaas la arki karo. Si muuqaalkaas loo arko, waxaa la isku xiray 11 teleskoop oo yaalla daafaha dunida, iyadoo la rabo in teleskoobyadaasi u shaqeeyaan sida hal teleskoop oo keliya, kaasoo xajmigiisu la eg yahay dhulka, si loo arko xadhka godka madow markii ugu horreysay ee taariikhda. Teleskoobyadan xajmigeedu la eg yahay dhulka ayaa loo bixiyey Event Horizon Telescope. Teleskoobyadan waxaa lagu rakibay qalabka isku xira cirif ilaa cirif adduunka oo dhan. Barnaamijyada waxaa xisaabinaya kombiyuutarro waaweyn oo loo yaqaano supercomputer si loo ururiyo macluumaadka guud. Run ahaantii, in la arko godka madow waxay noqonaysaa daliil xog weyn oo caddaynaya jiritaanka godka madow, sababtoo ah daliiladii waagii hore la xigan jiray waxay ahaayeen kuwo aan toos ahayn, keliya laga dab qaadan jiray saamaynta cufis jiidadka godka madow ku leeyahay xidigaha inoo dhow, sida xidigo laga waayay cirka oo uu liqay godka madow. Maxaa dhacaya haddii aad godka madow dhex gasho? Haddii aad godka madow u dhowaato, waxaa ku jiidanaya magnetiga ama cufis jiidadkiisa, waxaadna noqonaysaa sida baasada dhaadheer ee dhuuban oo kale. Haddii lugahaagu ay horgalaanna, godka madow waxa cagahaagu ay la kulmayaan cufis jiidad ka daran kan madaxaagu la kulmayo. Kadibna waxaa ku weynaanaya madaxa ilaa uu jirka kale ka haro. Si dhaqsaha ayaa cufis jiidadka aad la kulmayso uu kuugu beddelayaa qurbayaal yaryar. Godka madow miyaa lagu sheegay Qur'aanka?
culimada falagu waxay leeyihiin godka madow wuxuu ka dhashaa xidig weyn oo isku dumay, isku dumidaas oo ah in dusha sare ku dhacdo lakabka ka hooseeya. waxaa kale culimada falaga iyo fisikiskuba ay rumaysan yihiin in qorraxdeennu ay tahay xidig oo masiirkeedu noqonayo inay u dhimato sida xidigaha oo kale, iyagoo u soo daliishanaya aayadda ah ida shamsu kuwirad, marka qorraxdu la duubo. imaamka ka mid ah imaamyada mufasiriinta ee ibnu jariir al-dabari wuxuu yidhi ereyga takwiir magaca suuradda waxaa luuqadda carabiga loo yaqaanaa marka shay barkiisa barka kale la isku keeno, sida marka la duubayo cimaamadda waxaa lagu duubaa madaxa. sidaasoo kale ayaa qowlka rabbina la macno yahay in qorraxda barkeeda barka kale la isu keeni doono, kadibna inta la duubo la tuuri doono. marka sidaas laga dhigana waxaa tegi doona ilayskeeda. qorraxdu marka ay dhimato waxay isu beddelaysaa god madow, walow ay jiraan fikrado dhahaya godka madow waa inuu ka weyn yahay qorraxdeenna ugu yaraan 25 jeer. si kastaba ha ahaatee, waxaa aayadda sharafta leh caddaynaysaa in qorraxdu ay u dhimanayso sida xidigaha oo kale. aayadda labaad ee isla suuratu takwiir wuxuu ilaahay ku yidhi waida nujuumun katharad, markay xidiguhu daataan. dabcan aayaddan sharafta leh waxay tilmaamaysaa in xidiguhu dhintaan oo ay daataan. haddaba culimmada falaga agtooda xidigaha dhintay waxay ku daataan godka madow ama ayagaaba isku beddela godka madow, waa haddii ay yihiin xidigo waaweyn. si adduunkan aynu ku noolnahay aanay xidiguhu ugu soo dhicin ama ugu soo daatan ayuu ilaahay u sameeyey meel ay ku xoobtaan oo u soo jiidanaysa. si kale haddii aan u tilmaanno, godka madow waa xabaalaha xidigaha. ilaahay wuxuu yidhi wayumsiku samaa an taqaca cala al-ardi ilaa biidniillaah, ilaahay ayaa ka haya samada inay ku soo duldhacdo dhulka ogolaanshihiisa mooye. aayaddani waxay caddaynaysaa in cirka, xidigaha meerayaasha iyo dhagaxaanta irka in ilaahay ka hayo dhulka. dhanka kale ilaahay wuxuu ku leeyahay isla suuratu takwiir falaa uqsimu bilkhunnas aljawaari alkunnas, waxaan ku dhaartay xidiga qarsoon kuwaa soo socda ee qarsooma. ereyga alkhunnas waa xidiga qarsoon sida ibnu kathiir ku fasiray. sidoo kale ibnu manduur qaamuuskiisa loo yaqaano lisaanul carab wuxuu ku sheegay in ereygan yahay xidigaha qarsoon. ereyga aljawaar waa xidigaha soconaya. ereyga alkunnas waxay leedahay laba macne, marna waa qarsoomid, marna waa shay magnet leh oo wax soo jiidanaya ama shay cufisjiidad leh sida ibnu manduur qaamuuskiisu ku sheegay. aayaddan sharafta leh ee ilaahay ku dhaartay waxay caddaynaysaa inuu jiro xidig leh sifooyinkan: qarsoomid, soconaya, wax jiidanaya, halka godka madowna isaguna uu leeyahay sifooyinkaas oo dhan. wuu socdaa, wuu qarsoon yahay, wuxuuna leeyahay cufisjiidad uu ku soo jiito waxay u soo dhowaadaba.